Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha ee qaayalaha meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Sila 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaar oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya ee 30 sannadood isbedeli weyday maxaa ugu wacan yaa se ka mas'uula sida dadka Soomaaliyeed la wada socdaan muddada intaa leeg siyaasadda la isku fahmi waayay maxaad u malaynaysaa laakiin adigu weli xal ma u ogtahay waxaan idiin haynaa barnaamij la magac baxay beentii heshiiska lagu ahaa ama been heshiis lagu yahay waa siyaasadda Soomaaliya ee 30 sannadood xal loo waayay caalamkuna uu ku dawaqay iyo bal halka uu xal ku yaalo iyo maxaa xalka loo raadin laayay ma jiro dowlad iyo dad aqbalaya ama qof aqbalaya in been loo sheego maalin kasta been dhegeysto beenta la noolaado laakiin dadka Soomaaliyeed xilligan waxay aqbaleen dowladnimo been inay ku dhistaan caalamkuna wuxuu aqbalay dowladnimada lafteeda inuu beenta ugu dhiso ay dadka Soomaaliyeed doonayaan haddaba bal aynu dhageysano madaxda siyaasadda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo muddadii 5 sannadood uu joogay 4 sannadood hore iyo sanadkii dambe ku darsiga ahaa iyo ilaa imika uu madaxweyne yahay weli wuxuu raadinayaa Soomaalinimadii aan miiska lagu wada heshiinin waxaanu madaxweyne yahay Soomaalida kala madaxa ee isku miiska bal haddaynu dhageysano madaxda kale Soomaaliyeed iyo madaxweynaha laftiisii oo wada shiraya oo ka wada shiraya danihii dadka Soomaaliyeed ee kala danaha qaybtana bal aynu eegno waayo dawladaha shaarkooda gashan yihiin waayo dawladaha ka wakiil yihiin daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها الدولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدنيا ayaa ka qayb galay maalintii afraad shirka golaha wada tashiga qaran oo maalintii afraad socda madaxdu saaka way soo yimaadeen mar kale waxay ka doodeen oo ka akhrisadeen arrimaha doorashada gaar ahaan qodobada hortebinta leh sida dardargelinta doorashada sidii dhaqso loogu dhameystiri lahaa doorashada golaha shacabka xal u helida tabashooyinka amniga iyo guud ahaanba jadwalka doorashada sidii ay maartay isugu raaci lahaayeen aragtiyahooda iyo soo jeedimahooda ay madaxdu isu wadaarsadeen si wanaagsan ayuuna u socdaa isfaham guud oo wanaagsan ayaa jira waxa uu qorshuhu yahay Brito Jimca in madaxdu ay nasasho qaataan habeen dambe insha Allah ay isu yimaadaan si ay u dhameystiraan waxyaabaha u harsan shirka golaha wada tashiga qaran waxa hogaaminaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana ka qayb galaya madaxweynayaasha Puntland Koonfur Galbeed Hirshabelle Jubbaland Galmudug iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana rajaynaynaa insha Allah waxyaabaha ka soo kordhana kulamada dambeynaya iyaguna maamulada Soomaaliya ka jira Galmudug Jubbaland Puntland iyo dhammaan maamuladii kala dhan waxaana laga wada shirayay sidii Soomaaliya xal loogu heli lahaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha kale ee Soomaaliyeed weli waxay ka wada shirayaan sidii guriga jeengada u saari lahaayeen aan isaaska u dhigin heshiis waxay ku yihiin in dadka Soomaaliyeed matalaan ay ka dhaliyaan nabad laakiin dhammaantood way ku qanacsan yihiin inaanay taasi run ahayn waxay ku heshiiyeenna ay been tahay markasta waxa ku dhex jira dhexdhexaadiyayaal aan aqoonin afka Soomaaliga laakiin way ku qanciyaan in waxa ay u sheegaan ay sidooda u qaataan sida saxdayna waa sidaas Somaliland laftigeeda ayaa iyaduna ka mid ah kuwa jooga ee ka qayb galaya ee matalaya dadkii Hargeysa joogay oo iyaguna isku sheegay inay yihiin wakiilada shacabka Somaliland laakiin wakiilada halka jooga ee Somaliland magaceeda sheegta waxay ku hadlaan af Ingiriisi bal aan idin la dhageysto
tiraafo dadka halkan intaasoo sannadood u joogay midnimo inay muqaddas tahay in sidaa nin yar oon aqoon lahayn oon khibrad lahayn sidaa ugu ciyaaro waxa weeyaan dadka reer muqdisho bal ha fahmaan arrintaasi markan waxaan u jeedinayaa 4 kelmadood oo af ingiriisaan odhanaya waxaan u dan leeyahay waxa weeyaan for the international la dhisayay Somaliland guriga ma xagga sare laga dhiso jiingada la soo saaray mise xagga hoose laga soo dhisay oo reerihii isdiidanaa iyo qabaa'ilkii iswada diidanaa isku danta ahaa ayaa la soo heshiisiyey talada waa loo jeediyey bulshada caalamka ee Soomaaliya imka gacanta ku haysa laakiin way diideen bulshada caalamku imka way og tahay in lacagta laga qaadanaya inay been tahay inay lacag been ku bixinayaan iyo laftooda dowlad been ah inay dhisayaan dadka loo dhisay oo ogyihiin inay tahay dowlad been ah waa la ogyahay heshiis inaan run laga sheegaynin siyaasiyiinta Soomaaliya way ka wada warhayaan miiska markay wada fadhiyaan waxay isu sheegayaan inaanay run ahayn waayo dad Soomaaliyeed markay istilaan iyaga yaqaana siday u heshiiyaan ma run bay ku heshiin jireen mise been heshiis lagu yahay bay ku heshiin jireen waa su'aasha aynu doonayno dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaynu weydiino bulshada caalamka way ka warhaysaa waxaan la dhoodhoobayaa inaanay waxba ka soo baxaynin laakiin iyaga laftooda ayaa beenta iyaguna heshiis inagula ah oo ku qanacsan inaynu inaguna ku qanacnay wixii ay nagu qanciyeen oo ah inay dowladii noo dhisan suuragal maaha dadka siyaasadda Soomaaliya u dhuun daloola markaan wax badan ka weydiiyey waxay ii sheegeen xataa inay guul tahay haddii Soomaalidii is haysay ee kolba dal lagu soo heshiisiin jiray hadday maanta ku heshiinayaan dalka dhexdiisii laakiin su'aashu waxay tahay haddaad Nairobi joogto haddaad Mombasa joogto haddaad Kenya joogto haddaad Kismaayo joogto iyo haddaad New York joogtaba haddii xisaabta aad ka shaqaynaysaa ay tahay hal xisaab waxa kuu soo baxaya un waa hal natiijo muhiim maaha meeshaad joogtaa muhiim waxa ah maxaa laga hadlayaa madan Soomaaliyeed baa laga hadlayaa mise waxa laga hadlayaa been iyo kursigan sidee baan ku gaadhnaa shaararka ay gashan yihiin siyaasiyiintan Soomaalidu qof kasta wuu ogyahay inay tahay dan dal kale laakiin dadka Soomaaliyeed laftooda ayaaba ku qanacsanba inuu hebel wakiil ka yahay dal hebel waana ku sheegayaan iyagoo ku faraxsan waxay ku gooranayaan Qatar buu wakiil ka yahay Mareykanku wakiil ka yahay Kenya wadata Ethiopia wadata meeshan waxay ka saareen war qofkeebuu Soomaaligu wataa qofkeebaad adigu wadataa haddaba qof ku qanacsan in haddaba haddii la tijaabiyey beentii oo ay dowladnimo samayn weyday oo dibadda lagu soo shiray oo dalka gudihiisa lagu shiray oo haddana shaqayn weyday mar uun maxay u shaqayn weyday bal haddee in runta la tijaabiyo oo la yidhaahdo shirarkan dalka gudihiisa ka dhacaya run baynu doonaynaa inaynu ku shirno dowladnimadana xagga hoose ayaynu kasoo dhisaynaa bal aynu dhegaysano isaga ra-iisul wasaaraha laftiisa oo isaguna shirarkaa beenta lagu shirayo un ka qaybgelayay laakiin markan si kale u dhigaya kubadda farmaajona in badan daawanayay isaguna bal haddee wuxuu ina yidhaahdaa aynu dhegaysano maxamed cabdulaahi farmaajo saan la wada soconno waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay geesu istaag sida musharaxiintoo kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo inuu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shakhsiga ah taasoo ah waan booba ama waan bannada caqliga ha shaqeeyo Soomaaliyeed waxaa muuqata in caalamku uu diidan yahay inuu yidhaahdo war been baan dhisaynee sidee baan run u dhisnaa Soomaalidu ay ku wada qanacdo Soomaaliduna ay diidayso ay leedahay been baanu heshiis ku nahee sidee baanu heshiis ugu noqon karnaa runtii aanu diidnay 30 sannadood ka hor sidaa iyo nabadgelyo anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac kaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dheeshuna ha idin socoto arooska laga daraday
iskuursay inankii Chinese-ka ahaa inankii Soomaaliga ahaa ilmo yar bay dhashay oo Chinese Soomaali dhashay markay dhashay ayaa ilmi yaraa waxay tii waxaan siyaara jirta Jabaanka iyo Koreada iyo Malaysia iyo muxuu ahaa Vietnam iyo Philippines show waxay sheekhay siyaasad leedo Jankamun si haybay tiri ilmaha yar si hay islaanta bay kaga tagtay markay ka tagtay ayaa ilmi yar ooyay ayay show waxa inankan u bartay hadal yaroo Chinese kana islaanta ayay kasoo ma caloosha ku xanuunaysa markaas uu buraamurtay ayeeyo jirkaygiiyo jaynayso yaada jarmaadaada saakabay jawku tiri tolkeed reera jabaanay booqato indhaha isla jibiqsanyiin jaaladeed bay gaadhay oo wejiga isla jabaxsanyiin dumar bay la soo joogaysaa dhereerka isla jagabsanyiin dadayay la soo jaasaysaa timaha isla jirifsanyiin dad bay la soo joogaysaa xubnaha isla jilicsanyiin iyadoo jagam lebey soo jaf odhan mar dhow siyaaradii jikmun ayaa loo jibaysanaa cabdiqaadir jiraani manacee maxaa jinkimuu na baray iyadoo waxaa ku hadlaysaa maxaa dhacay wiigu ooy codkaaga weymkooyaa keen anaa qaaday ilaa aniguna waxaan ka aqaanaa jiniiska yada jankama yajonjonhi nunaka kaman inankiina bay ku dhegaybaysan hooyadahay